kulanti wacan oo wanaagsan idil ahaantiinba meel kastoo aad joogtaan iyo si kastoo aad ii maqashaan kusoo dhowaada barnaamijka xaqiiqda iyo xogta dahsoon waxaa idiin soo gudbinaya anigoo ah Abwaan Xarago. allaha u naxariistay waxaa maanta aas qaran loogu sameeyay magaalada Muqdisho injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariisow gudoomiyihii gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho oo toddobaadkii la soo dhaafay qarax lagula eegtay xarunta gobolka Banaadir ee magaalada Muqdisho kadibna uu ku geeriyooday magaalada Dooxa ee dalka Qatar. abaara labadii subaxnimo ee saaka ayaa waxaa soo caga dhigatay diyaarad siday meydka gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho waxaana aas qaran loogu sameeyay qabuuraha General Kahiye ee magaalada Muqdisho. waxaa halkaas khudbado ka jeediyay madaxda ugu sareysa ee dalka sida ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka. waxa uuna sheegay in uu ahaa gudoomiyuhu nin aad iyo aad u wanaagsan una dabeecad wanaagsan. allaha u naxariisto ilaahay su'aasha ha u fududeeyo. cabdiraxmaan waxa uu ahaa shakhsi aad u wanaagsan oo afgaaban oo af iyo adinba dadka muslimiinta ay ka nabad galeen. gadaal gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho injineer Yariisow ayaa looga soo dareeray qabuuraha General Kahiye kadib markii halkaasi lagu aasay. haddaba waxaa goobta taagnaa wiil uu dhalay injineer Yariisow oo aad iyo aad muruga ay uga muuqato halkaasoo madaxda dalka Soomaaliya ay salaan iyo tacsiyeyn wiilka u jeediyeen. isku soo wada duubo injineer Yariisow waxaa lagu aasay qabuuraha General Kahiye waxaana isweydiin mudan oo ummadda Soomaaliyeed ay isweydiinaysaa maxaa looga hortagay baaritaankii injineer Yariisow maadaama ay shaki weyn ka qabaan ummadda Soomaaliyeed in injineer Yariisow markii horena lagu qarxiyay gobolka Banaadir markii dambena looga shakisan yahay in cirbad suna lagula dhuftay magaalada Dooxa ee dalka Qatar. haddaba dalka UK ama dalka Ingiriiska waxa ay sheegeen in ay dalbadeen dhaawaca injineer Yariisow waa loo diiday kadibna waxa ay dalbadeen meydka injineer Yariisow si ay u baaraan. intaa ka gadaal waxaa dadaalo dheer geliyay madaxda ugu sareysa dalka sida madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Khayre si baaritaanka looga badbaadiyo gudoomiyaha gobolka Banaadir injineer Yariisow. haddaba su'aasha u baahan in la isweydiiyo maxaa loo diiday in gudoomiyaha loo baaro laf timir baa ku jirta. waxay ila tahay aniga ahaan in qaraxa loo geystay gudoomiyaha gobolka Banaadir ay wax ka og tahay dowladda federaalka Soomaaliya. Cabdi Xarago TV-ga iyo janalka Cabdi Xarago oo anigu aan leeyahay magaalada Muqdisho.